بسم الله الرحمن الرحيم qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah xaalad culus oo ka soo korortay xiisadda Iiraan iyo Mareykanka kadib markii la sheegay suurtagalnimada in la beegsado hogaamiyaha sare ee Iiraan iyo wiilkiisa waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Mareykanka iyo Iiraan qayladhan iyo cambaarayn caawa ka soo yeeraysa caasimadaha Carabta iyo dalalka Islaamka taasi oo la xiriirta hadal uu jeediyay mas'uul sare oo Ameerikaan ah oo sheegaya in Israa'iil ay xaq u leedahay inay qaadato guud ahaan bariga dhexe taas oo ku sheegay inay tahay tilaba diiniya sida hadalku uu dhigay Jordan oo si adag uga diiday in dhulkeeda loo adeegsado duulaan ka dhan ah Iiraan hay'adaha sirdoonka Mareykanka oo shaki weyn ka qaba qorshaha Shiinuhu ku xoojinayo awoodiisa nuclearka waliba heer casri ah sheekada ugu dambeysay barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay haweeney u dhalatay waddanka Taiwan oo arrin la yaab leh dariskeeda ku samaysay taas oo keentay in maxkamad la soo taago waa yaabe maxay samaysay sheeko cajiib ayaan idinkaga haynaa arrintan dhammaan qodobadan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama ma horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa caasimadaha Carabta iyo dunida Muslimka ayaa waxaa ka soo yeeraysa qayladhan iyo cambaarayn waxaynu maqli jirnay muddooyinka ugu dambeeyay waxa la yiraahdo Israa'iisha weyn oo ka soo yeeraysa wasiirada mayalka adag ee xukuumadda Netanyahu inkastoo Netanyahu laftigiisa bishii Agost uu yiri waan taageersanahay aragtida Israa'iisha weyn maxaa loola jeedaa Israa'iisha weyn intaan shakadan aan guda galin waxaa loola jeedaa Israa'iil waxay sheeganaysaa oo xag diin ahaan ay aaminsan tahay dhulkan hadda ay Falastiiniinta ka qabsatay intii la iska daayo in laga soo bilaabo webiga Niil ilaa iyo webiga Furaat Israa'iil iska leedahay marka laga tago dhulkan Falastiiniyiinta Gaza iyo daanta galbeed dhulkaas gebi ahaan wuxuu qaadanayaa Jordan Lubnaan oo idil in badan oo kamid ah Syria Iraq in kamid ah ilaa iyo webiga Furaat sidoo kale Turkiga qayb kamid ah dhankan ilaa Sacuudiga kala bar oo xitaa ku dhawaanaysa xaramka barakaysan waxa kaloo kamid ah dhulkan la yiraahdo Sinai ee waddanka Masar iyo in badan oo kamid ah badda Cas arinta marka waxa laga maqli jiray inta badan wasiirada oo kamid yahay Bezalel Smotrich iyo xubno kamid ah golaha xukuumadda iyo siyaasiyiinta mayalka adag Israa'iiliinta oo leh anagu waxaan xaq u leenahay oo Ilaahay uu nisiyo sida ka u dhigeen dhulkaas laakiin arintii waxa ka daray safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Tel Aviv waa nin aad iyo aad u aaminsan Israa'iil waliba ma ahan taageero siyaasadeed waa aragti diineed oo uu leeyahay dadkan waa dad ay tahay in la taageero waa waajib ku leeyahay ninkii marka waraysi bixiyay dabcan oo kula socoteen wararkii ugu dambeeyay intaan la socon waraysigaas wuxuu ku leeyahay Israa'iil haddii bariga dhexe dhan ay qaadato anu waxa kaba qabo warkii markuu baxay dabcan barnaamijka wararka caawanadii kugu soo gudbinay arrinta marka meel adag maraysa wadamada Carabta baa qaylo dhaaman afka qabsaday aynu eegno warkii ugu dambeeyay amuurtani dhowr dal oo Carbeed iyo kuwa Muslima ayaa si adag u cambaareeyay hadaladan uu jeediyay safiirka Mareykanka u fadhiya Tel Aviv Mark Huckabee waraysigaasi oo kaga hadlay inuu raalli ka yahay in Israa'iil ay la wareegto oo ay maamusho guud ahaan bariga dhexe oo idil farcilintii ugu horeysay ee Carbeed wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Jordan ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in hadalladaasi ay yihiin kuwa aan macquul ahayn oo kicina isla markaasina jibinaya xeerarka diblomaasiyadda ku xadgudbaday madax banaanida dalalka gobolka kana hor imaanaya qawaaniinta caalamiga iyo axdiga qaramada midoobay wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in hadalladaasi ay ka hor imaanayaan mowqifkii uu horay u sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee diidmada la wareegista daanta galbeed ee la haysto bayaanka wasaaradda ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in daanta galbeed oo ay ku jirto Qudusta bari iyo Mareyka Gaza ay yihiin
dhul Falastiiniya oo la haysto sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah. waraysigan oo uu bixiyey Mark Huckabee ayaa waxa uu siiyey wariyaha Mareykanka ee lagu magacaabo Tucker Carlson waxaana qayb ka mid ah la baahiyey jamcihii. Huckabee ayaa sheegay inuusan wax qalada u arkin in Israa'iil ay la wareegto bariga dhexe oo idil isagoo tix raacaya fisiraado diiniya iyo waxa ugu yeeray in ay xaq u leedahay Israa'iil inay maamusho laga soo bilaabo webiga Niil ilaa webiga Furaat. dhanka Sacuudiga wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa si kulul u cambaaraysay hadalladan uu jeediyey safiirka Mareykanka ee Israa'iil kuwaasi oo lagu tilmaamay hadalla aan taxaddar lahayn waxaana lagu sheegay bayaanka la soo saaray in aan la aqbali karin in Israa'iil ay maamusho guud ahaan bariga dhexe. boqortooyada Sacuudiga ayaa xaqiijisay diidmo buuxda oo ay u qabto hadalkan oo lagu tilmaamay mid mas'uuliyad darro ah kaas oo jebinaya qawaaniinta caalamiga axdiga qaramada midoobay iyo xeerarka diblomaasiyadda isla markaasna abuuraya tusaale khatar ah oo ka soo baxay mas'uul Ameerikaan ah kana turjumaya tixgelin la'aan ku aadan xiriirka gaarka ee u dhaxeeya dalalka gobolka iyo Mareykanka. war-saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in soo jeedintan waa sida bayaanka lagu yiri xag jirka ah ay muujinayso cawaaqibka halista ah ee khatar gelinaya nabadda isla markaasna ka hor imaanaya amniga caalamka maadaama ay kicinayso dalalka iyo shucuubta gobolka isla markaasna arrinkani uu wiiqayo nidaamka caalamiga ah ee lagu heshiiyey si loo joojiyo dagaaladii dhiigga badan ay ku qabteen ee malaayiin qof ay ku dhinteen. wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga waxay ugu baaqday Mareykanka inuu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan soo jeedintan oo ay diidaan dhammaanba dadka jecel nabadda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa war soo saartay iyaduna waxaa lagu sheegay in safiirka Mareykanka hadalladiisa ay yihiin kuwa si cad ugu baaqaya in lagu xadgudbo madax banaanida dalalka isla markaasna ka hor imaanaya xaqiiqooyinka diineed taariikheed iyo sharciga caalamiga ah. wasaaraddu waxay adkaysay in hadallada kicinta ay si cad ugu baaqayaan in lagu xadgudbo madax banaanida dalalka isla markaasna ay taageerayaan sii wadida dagaalka barakicinta dhismaha deegaamaynta iyo qorshayaasha barakicinta dhulalka Falastiiniyiinta. waxaana wasaaraddu intaasi ku dartay in marayka Gaza iyo daanta galbeed oo ay ku jirto bariga Qudus ay yihiin dhul Falastiini oo la haysto sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin waxay ugu baaqday maamulka Mareykanka inuu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan hadallada safiirkooda Israa'iil isla markaasna dib u xaqiijiyo mowqifyada ka soo yeeray madaxweyne Donald Trump ku saabsan nabadda bariga dhexe joojinta dagaalada iyo diidmada la wareegista daanta galbeed. sidaas si lamid ah wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Masar ayaa sidoo kale cambaaraysay hadallada Huckabee ee ku saabsan xaqqa Israa'iil ay u leedahay dhulalka Carabta. waxaana wasaaraddu ay adkaysay in Tel Aviv aysan wax madax banaaniya ku lahayn dhulalka Falastiiniyiinta ama dhulal Carbeed waxaana ay sheegtay in hadalladaasi ay jebinayaan mabaadi'da sharciga caalamiga iyo axdiga qaramada midoobay isla markaasna ka hor imaanaya aragtidii uu soo bandhigay madaxweyne Trump ee ku saabsan joojinta dagaalka Gaza iyo dadaalada nabadeed. Masar waxay si cad u diidan tahay baa la yiri isku day kasta oo lagu damacsan yahay in lagu wareego daanta galbeed ee la haysto ama lagu kala saarayo marayka Gaza. waxaana adkaysay in Israa'iil aysan wax xaq u lahayn dhulalka Falastiin ee la haysto isla markaasna dhulalkaasi ay yihiin dhulal ay leeyihiin dadka Falastiiniyiinta. isla wararkan ururka iskaashiga dalalka islaamka ee magaciisa loo soo gaabiyo OIC ayaa isna bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay inuu si adag uga soo horjeedo hadallada safiirka Mareykanka ee Israa'iil ee ku saabsan ballaarinta sida bayaanka lagu yiri guumaysiga Tel Aviv laga bilaabo webiga Niil ilaa iyo webiga Furaat. ururku wuxuu ku tilmaamay hadalladaasi kuwa khatar ah oo xasiloonida gobolka wax u dhimaya isla markaasna ku salaysan aragti taariikheed iyo fikir aan la aqbali karin oo jebinaya madax banaanida dalalka iyo sharciga caalamiga ah. ururku waxa uu ka digay in hadallada caynkaasi ah ay dhiiri gelinayaan xag jirnimada isla markaasna waxa lagu booriyay Israa'iil in ay sii wado hadallada caynkaasi ah ama lagu dhiiri gelinayo Israa'iil inay sii wado sida bayaanka lagu yiri tillaabooyinka sharci darrada ah ee ku salaysan barakicinta deegaamaynta la wareegida dhulalka
isku dayga lagu xoojinayo haysashada dhulka Falastiin ee la haysto. Ururkan oo ay ku midaysan yihiin 57 wadan ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay taageerada buuxda ee xuquuqda shacabka Falastiin, taasi oo la leeyahay waa in ay xaq u helaan dhul ay dawlad ka dhistaan, taasi oo ku saleysan xuduudihii 4 Juun 1967. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa 12 bishii August ee sanadkii aynu ka soo gudubnay waraysi uu siiyay telefishinka Israa'iil laga leeyahay ee I24 wuxuu ku sheegay inuu si xooggan ugu dhagan yahay aragtida Israa'iisha weyn. Aragtidan sida ay Israa'iil sheegato waxay ka kooban tahay dhulka Falastiin in la haysto qaybo ka mid ah dalalka Carabeed laga bilaabo webiga Furaat ilaa iyo sidoo kale webiga lagu magacaabo Niil. Arrintaasi oo lagu macneeyay inay tahay tilaabo Israa'iil markaasi ay kula wareegayso dhulal badan oo Carabeed, waxaana taasi ay keentay in dad badan arrinkaasi ay si weyn uga hor yimaadaan kuna tilmaamaan inay tahay mid aan la aqbali karin. Hagaag haddaba qirradan aynu eegno marka calaamadan hurdiga waa inta Israa'iil ay doonayso inay gaarto. dhankan hoose waad aragtaan waa Masar, magaalada Qaahira ka mid ah xitaa ilaa waxay soconaysaa badda cas. Siinay oo dhow way qaadanaysaa. Jordan gebi ahaanba way qaadanaysaa ama Urdun. Lubnaan way qaadanaysaa. Falastiin oo dhan warkeeda iska badaaba. Syria Dimashq waa lagu tegayaa ilaa iyo Homs, ilaa iyo magaalada la yiraahdo Tadmur ayay tegaysaa. dhankan Turkiga in badan ka tegaysaa inkastoo aysan badnayn. Turkiga waa xaggan hoose Qobrus soo xiga oo dhanka Syriana xiga. waayahay gacanta midigta aan eegno Ciraaq, Baghdad wax yar baa loo jirsanayaa bacdama webiga Furaat uu halkaas maro waad arkaysaan. sidoo kale Kuwait qayb ka mid ah, laakiin meesha ugu daran marka waa Sacuudiga. Sacuudiga waad garanaysaan waa dhul aad u ballaaran, kala bar oo bar ayay Sacuudiga qaadanaysaa. waa qorshaha sida uu yahay, sida uu muujinayo maapkan ama qirradan ay muujinayso. hagaag marka hadda waxaynu aragnaa caasimadihii Carabta oo cambaarin iyo qaylaan ay ka soo yeerayso. dabcan warkan warar weyn baa la socda, ishayna ku hayn doonaa haddii alla ilmo. markan waxaynu u gudbaynaa dhanka Shiinaha iyo Mareykanka oo dusha sare iska eeganaya. hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa ka shakasan in Shiinuhu uu wado dadaalo lagu horumarinayo hanaan cusub oo hub nuclear ah, sida uu tabiyay telefishinka CNN oo soo xiganaya ilo xogogaal ah oo la socda qiimaynta Washington. warbixintu waxay sheegtay in cadeymo la ururiyay tan iyo tijaabo qarsoodi ah oo la tuhunsan yahay inay dhacday Juun 2020 ay sare u qaadeen walaaca Mareykanka ee ku aadan qorshaha Beijing ee ku saabsan hub aad u horumarsan. ilo wareedyo ayaa sheegaya in dadaaladaasi ay ka mid yihiin samaynta gantaalo qaadi kara nuclear yaryar oo badan hal mar iyo sidoo kale hub nuclear ah oo xeeladaysan. mas-uul ka tirsan waaxda dagaalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo qiimaynta sirdoonka. dhinaca kale afayeenka safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu qalloocinayo siyaasadda nuclearka ee Shiinaha, isagoo ku tilmaamay eedamahaasi kuwa gebi ahaanba aan sal iyo raatoona lahayn. hagaag warkaas halkaas aynu kaga gudubno. waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Mareykanka iyo Iiraan. caawa meel adag ba runta gaartay. waxaa la leeyahay qorshaha waxa ku jirtaba in la beegsado waa haddii ay suurtageli karteen hogaamiyaha sare ee Iiraan iyo weliba wiilkiisa. intaan u gudbin wararkaas iyo qodobo kale aynu ka hakanno. hagaag markan waxaynu u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Mareykanka iyo Iiraan. shabakadda wararka Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa daabacday iyadoo soo xiganaysa mas'uuliyiin xogogaal ah in taliyaasha militariga Mareykanka ay u soo bandhigeen madaxweyne Donald Trump xulashooyin militari oo ay ku jiraan suurtagalnimada in hogaamiyaha sare ee Iiraan Ali Khamenei iyo wiilkiisa Mojtaba lagu daro bartilmaameedyada haddii la go'aansado in Iiraan la weeraro. warbixintu waxay sheegtay in qorshaha lagu beegsanayo hoggaanka Iiraan la soo jeediyay toddobaadyo ka hor, iyadoo mid ka mid ah qorshahani uu yahay xaaladaha
suurtagalka ah ee Pentagonku ay u gudbiyeen Trump. Si kastaba ha ahaatee, Trump weli ma uusan gaarin go'aan kama dambaysa oo arrinkan la xiriira, waxaana la sheegay in ay u furan yihiin fursadaha u dhaxeeya wadahadal dhanka diblomaasiyadda iyo tillaabooyin military. mas-uul sare oo Maraykan ah ayaa sheegay in Trump uu u diyaar yahay heshiis sida hadalka loo dhigay wax ku ool ah oo markaasi xaaladdan lagu xakameyn karo, taasi oo muujinaysa in maamulka uu tixgelin karo soo jeedin ogolaanaysa kobcin uraniumka oo xadidan haddii la xaqiijiyo in Tehran aysan siinayn waddo ay ku samaysato hub nuclear. arrinkaasi hadduusan u hirgelinayn, wuxuuna intaasi ku daray in Iran ay soo bandhigtay dalab aan la diidi karin haddii ay rabto inay ka fogaato weerar, isagoo xusay in dulqaadka uusan ahayn mid xad aan lahayn. dhankiisa, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa ku dhawaaqay in Tehran maalmo gudahood ay soo gudbin doonto hindiso qoraal ah oo ay ku jiraan ballanqaadyo dhanka siyaasadda iyo tillaabooyin farsamo oo lagu xaqiijinayo in barnaamijkeeda nuclearka uu yahay mid nabadeed, iyadoo taa beddelkeedana dalbanaysa in la yareeyo cunaqabataynta saaran ee Maraykanka. si kastaba ha ahaatee, ilo Maraykan ah iyo kuwa Israa'iiliya ayaa tilmaamaya in shuruudaha lagu aqbali karo soo jeedin kasta Iran ay yihiin kuwo aad u adag, isla markaasna maalmaha soo socda ay go'aamin doonaan in wadahadalladu ay sii socdaan ama ay labada dhinacba u dhaqaaqaan xiisadan sii kordhaysa. la taliye ku dhow Trump ayaa xaqiijiyey in madaxweynuhu weli uusan go'aan kama dambaysa ka gaarin weerar, iyadoo Pentagon uu soo bandhigay xulashooyin kala duwan oo u dhexeeya weeraro xadidan ilaa iyo dagaal ballaaran. afayeen u hadlay aqalka cad oo la yiraahdo Anna Kelly ayaa sheegtay in kaliya madaxweynaha uu og yahay waxa uu samayn karo ama uusan samaynayn. Iran waxay ku adkaysanaysaa xaqa ay u leedahay kobcinta uraniumka ujeedooyin rayd ah, halka Trump uu ku adkaysanayo in Maraykanku uusan aqbali doonin kobcin kana dhacda gudaha dalka Iran. Axios ayaa aaminsan in weli ay jiraan fursado ciriiriya oo lagu gaari karo heshiis ka hortagi kara iska horimaad military. dhinaca kale, dowladda waddanka Jordan ayaa sheegtay in dhulkeeda aan loo adeegsan doonin in laga bilaabo weerar military oo ka dhan ah Iran, iyadoo rajo ka muujisay in wadahadallada u dhexeeya Maraykanka iyo Tehran ay horseedi doonaan xal siyaasadeed oo ka hortaga dagaal ka dhaca gobolka. telefishinka dowladda Jordan ee Al-Mamlaka ayaa soo xigtay sarkaal reer Jordan ah oo aan magaciisa la carababin, kaasi oo u sheegay wargeyska The New York Times in boqortooyada Jordan aysan ogolaan doonin in dhulkeeda loo adeegsado weerar ka dhan ah Iran. sarkaalka ayaa intaasi ku daray in Urdun ay rajaynayso in wadaxaajoodada socda ay keenaan heshiis siyaasadeed si looga fogaado tilaabo military. xaaladdu marka halkaasi maraysa, waynu arki doonaa waxa ku soo kordha. iminka waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aan idinkugu soo gudbino. waxaan idin haynaa haweeney u dhalatay jasiiradda Taiwan ayaa arrin la yaab leh maxkamadda loo horkeenay. haweeneydan dadkii dariska ahaa ayay nafti u keentay, waa dadkii dariskeeda ahaa. haddaba aynu eegna sheekadan oo warbaahinta Taiwan iyo baraha bulshadaba si aad u hadalhayaan. bal qiyaas adigoo si nabad ah u hurda sariirtaada, kadibna silma filaan ah saq dhexe ugu soo toosa qaylo, cay iyo hadalla kulkulul. tani waxay noqotay riix xanuun leh oo ay la kulmaan daraasiin qof ah oo daris la ah haweeney degan magaalada la yiraahdo Kuanzing ee dalka Taiwan, kuwaasi oo la dhibtooday falalka haweeneydan ay ku kacda habeenkii saqda dhexe. maxkamad ku taala Taiwan ayaa xukun ku riday haweeney lagu magacaabo Jan oo la sheegay in codbaahiye ama mikrofon intay soo qaadato iyadoo ku rakabanaysa balkoonaha gurigeeda habeenkii saq dhexe dariska qof u caynaysa. toddobaadkii 3 jeer ayay samaysaa dhacdadaasi, waxayna soo waday muddo 3 sano ah. Jan waxay bilowday in mikrofon weyn ay ku caydo dariskeeda, gaar ahaan kuwa xurgufta ay ka dhaxayso. waxay soo bilowday arrintan sanadkii 2023 iyadoo codbaahiyahana uu aad u sarreeyo. wuxuu dhib ku noqday dad badan oo daris la ahaa, inkastoo ay sheegeen in mararka qaarkood ay samayso. haddana maxkamadda waxay ku xukuntay 3 bilood oo xabsiya iyo ganaax lacageed. arrinta marka la yaab kale waxay noqotay dadkii oo iska jiifa guryahoodii ayaa hal mar haweeneyda mikrofon qaadato
ay dariskii usoo tirinaysaa qofkii la dagaalsan tahay intii hore waa loo dul qaadanaya waxaa la islahaa malaha maskaxda la adhayo madaxa lagaga jira laakiin markii la arkay nolosheeda iyo sida u soo labisanayso iyo siday nolol maalmeedkeeda u maamulayso iyo shaqadeeda si u aadayso waxa la arrintan waxba ku jira haweeneyda la ka qabtay marka dacwa la geeyay marka booliiska maxkamad baa la keenay hadda waxay mudatay xabsi 3 bilood gacanta inay barkato وهاجا Soomaalida hore waxay u tiri waxaad barataa waa ba'a وهاجا inta ayaan kusoo gabagabeynaya caawa barnaamijkii qobanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo